barnaamijka cayaaraha waxaan rabaa inaan ku soo qaato kooxda Liverpool oo guuleysatay oo 5 gool dhalisay. Liverpool ma soo kabsatay kadib markii 4 cayaar laga adkaaday. Sidaan isleeyahay Liverpool waxaa u maleysaa shaxdii hore uu ku cayaari jiray inuu bedelay oo ka dhigay 4-4-2 oo ka dhigay xalana shax cusub oo la yimid. laakiin waxaan rabaa wax yar inaan ku hormaro Chelsea laftigeeda oo guul weyn gaartay oo Ajax 5-1 uga adkaatay, taasoo Chelsea ay u fududeysay kooxda Ajax oo cayaartooy laga saaray kadibna 10 cayaartooy ay noqdeen. hase yeeshee suurtagal ma ahayn in 10 cayaartooy Ajax ayagoo in garoonka Stamford Bridge ay kula tartamaan, taasoo 3 cayaartooy oo teenage waxa loo yaqaano ay Chelsea goolal u kala dhaliyeen. Chelsea-na ciyaaryahano badan oo waaweyn ayuu fadhiisay, taasoo ciyaaryahano yaryar oo garoon kusoo daray, taasoo rabay inuu siiyo fursad. Chelsea-na waxay u muuqataa inuu tababaraha Enzo Maresco uu dhisayo in 2 koox oo fiican oo kale inuu haysto, haddii dhaawacay soo gaaraan ciyaartooydan kale inay meesha ay buuxi karaan, taasoo aan la soconno Pedro Neto iyo Garnacho iyo inuu fadhiisiyey ciyaaryahana iyo Cucurella laftigiisa inuu fadhiisiyey. marka taasna waxay keentay inuu guul weyn oo gaaro oo meeshaas uu gaaray. Champions League-na waxaan la soconnaa in 2 kulan oo la wada ciyaaray oo talaadadii arbacadii inay goolal badan ay ka dhasheen, taasoo goolal xiiso lahay ka dhashay. oo waxaan la soconnaa Real Madrid inay Juventus 1-0 uga adkaatay, taasoo ciyaaryahankii Bellingham goolku dhaliyay, kaasoo xulka Ingiriiska laga reebay, haddase awoodiisa raba inuu soo muujiyo, taasoo raba inuu ciyaaraha adduunka 2026 oo dib ugu soo noqdo. iyo ciyaaryahankii Nigerianka Osimhen oo naftigiisa 2 gool dhashto aad iyo aad u fiican, kaasoo kooxo badan oo Premier League ay rabeen. waxaana filayaa ciyaaryahankaas haddii Chelsea ay soo gada lahayd maanta meesha ay joogto meel ka fiican inay joogi lahayd, kaasoo gool dhalinta aad iyo aad runtii ugu fiican. Galatasarayna 2 cayaar ugu dambeysay ay guule ay gaarto Liverpool ay ka adkaatay ciyaartii hore. waa la soconnaa 5 koox oo Champions League ayaa 3 kulan ay wada cayaareen intaba wada guuleysteen, kuwaasoo aan la soconno inay kala yihiin PSG, Bayern Munich, Real Madrid, Arsenal, inay kooxahaas iyo Inter Milan 5taas koox inay 3 cayaar ay dheeleenba ay wada guuleysteen, ay meeshaas 9 dhibic ay ku haystaan. marka Champions League-na waa bilow oo waxaan la soconnaa 9 koox oo ugu dhibcaha badan in la soo qaadi doono, laakiin inta kale inay wada cayaari doonaan waxa loo yaqaano knock out-ka, taasna ay kooxaha u tartami doonaan. si kastaba hatee waxaan isleeyahay 6 koox oo Champions League cayaartay oo kooxii Premier League sida aan la soconno 19 gool ayay dhaliyeen, markii Tottenham laga reebo inta kale goolal ayay dhaliyeen. waxaa arrintooda aad iyo aad ayay u fiican tahay oo Tottenham keliya ayaa kooxdii Faransiiska Monaco barbardhac la soo gashay, intii kale way soo wada guuleysteen. taasna waxaan isleeyahay kooxaha Premier League awoodooda ayay ku tusaysaa oo Champions League ka cayaaraya. waxaan isleeyahay intooda badan wareegan koowaad way soo gudbi doonaan, laakiin Tottenham ayaan xoogaay cabsi aan u qabaa. 5 kale ma u malaynaa inay soo bixi doonaan ayaan fili doonaa. si kastaba hatee haddii aan u leexdo dhanka iyo kooxda Liverpool oo waxaan la soconnaa xalay Maxamed Saalax in la fadhiisiyay ciyaaryahankaas oo kaydka la geliyey, hase yeeshee oo shaxdii uu ku ciyaari jiray oo 4-3-3 inuu bedelay oo Arno Slot oo ka dhigay 4-4-2 oo ka dhigay. waa shax aad iyo aad u fiican, laakiin waxaa u maleysaa meeshii dhexda 3 ku ciyaari jireen inuu ka dhigay 2 inuu ka dhigay, taasoo ciyaaryahankii Jones iyo ay joogeen Szoboszlai ay meeshaas ay ilaalinayeen. afka horena uu ka dhigay 2 dhaliyo oo wada geeyo oo meeshaas Alexander Isak iyo Ekitike oo dhigay. dhinaca kalena Gabo ayuu geeyey oo waxaan la soconnaa Gabo in aan la fadhiisi karin markii loo fiiriyo ciyaartii u dambeysay ee Liverpool ay ciyaarto Man United ay ka adkaato, inuu ah ciyaaryahan aad iyo aad u fiican, goolna dhaliyay 2 mirna oo birta uu ku dhiftay. dhinaca midigtaana inuu geeyey ciyaaryahankii Jarmalka ahaa Florian Wirtz inuu dhinacaas geeyey oo Saalaxna kaydka la dhigay. si kastaba hatee waxaan qabaa Florian Wirtz inuu xalay ciyaar aad iyo aad u fiican soo bandhigay, 2 kubadna oo dhigay. waxaan la soconnaa goolkii Gabo oo taabinka waxa loo yaqaana ahay
inuu Florian Wirtz uu soo dhigay oo goolka hortiisa u dhigay asna si fudud oo cagta ugu dhaliyay Gabo iyo goolkii kale oo banaanka uu ka toogtay cayaaryahankii Szoboszlai taasoo xarqan 18 korkeeda oo kubad fiican u dhigay marka Florian Wirtz markii la fiiriyo dhaqdhaqaaqiisa kubad dheelidiisa waxaan qabaa inuu yahay cayaaryahan aad iyo aad u fiican ilaa iyo 78 kubadna wuu taabtay 56 kubad ayuu saxay oo meeshii loo baahnay ayuu geeyey oo wax uu qalday ma jirin taasna waxay ku tusaysaa inuu cayaaryahankan si tartiiba oo u soo socdo cayaaryahanada qaarna si degdega kooxaha ulama qabsadaan qaarna si degdega ayay ula qabsadaan marka waxaan fili doonaa haddii nambarka 10aad laga dhigo inuu cayaaryahankaas wacdara uu dhigi doono inkastoo cayaaryahankii Alexander Isak la bedelay qaybtii dambe kaasoo oo loo maleeyo inuu dhaawac uu soo gaaray uusan cayaarta soo socoto uusan cayaari doonin laguna bedelay Frederick Chiesa laftigiisa waxaan qabaa inuu yahay cayaaryahan aad iyo aad u fiican kubad dhigidda iyo dhalintaba uu ku fiican oo naftigiisa waxaan qabaa inuu xaq u leeyahay in Chiesa la cayaarsiiyo nambarka 9aad laga cayaarsiiyo oo naftigiisa markuu soo galo waa la soconaa gooluu dhaliyaa ama kubada ayuu dhigaa oo cayaaryahan aad iyo aad u fiican waayo runtii laakiin mararka qaar kooxaha waaweyn waxay u baahan yihiin cayaartooyda gadaal ka yimaada inay wax sameeyaan taas ayaa waxay keenaysaa cayaaryahanka Chiesa oo Talyaaniga in kaydka la geliyo laakiin waxaan qabaa mustaqbalka hadduu san kusii socdo laftigiisa inuu meel carirsi doono Ekitike waxaan qabaa goolkii uu dhaliyay gool cajiiba inuu ahay oo kubad la soo gooyo oo difaaca looga dhex bixiyay inuu ka dhex cararay laakiin sida uu u qaatay markii dhinaca bidixda uu ku socday dhinaca midigta dhexda ayuu la soo aado ninkii difaacay hortiisa ayuu yimid wuxuu ku qasbanay difaaca inuu cayaaryahankaas qalad ku galo hadduu qalad ku geli lahaa calaamadda gaduuda la sii lahay waana la saari lahay gool kulaadna wuu laga dhigi lahay taasoo hortiisa uu kubadda ku tuurtay taasna waxay ku tusaysaa orodka iyo waa aragnimada uu leeyahay cayaartooyga difaaca markaa ka cararta inaa isku aadisa ayaa la rabaa si uu kubadda kaaga taaban ama fursadaada aad markaas u qaadatid sida uu qaatana waxay ku tusaysaa inuu yahay cayaaryahan runtii dhaliya aad iyo aad u fiican kubaddina si fudud ayuu u dhaliyay mana qaba ana Ekitike in la fadhiisiyo oo Alexander Isak oo lacag badan laga soo bixiyey iyo cayaaryahano kale oo meesha Saalax oo kale iyo Florian Wirtz ama Gabo dhammaantood in loo fadhiisiyey ma qaba aniga runtii hadda sida muuqata Liverpool waa cayaaryahanka ugu cadcad waxaan qabaa Hugo Ekitike inuu yahay mana u qalmo in la fadhiisiyo marka Liverpool waxaan isleeyahay waxaa u maleeya inay soo qabsatay markaa fiiriso Van Dijk iyo Ibrahim Konate laftigooda labada gool oo madaxa ay kala dhaliyeen oo difaaca labadoodana runtii waxaa u maleysaa inay ahaayeen difaac ugu fiican oo dhexda hase yeeshee cayaartii Manchester ayaa xoogay dhibaato yar soo gaartay oo labadooda waxaan kala la soconnaa in labada nin oo cayaaryahanada dhexda ka dheelo oo shantii afarta u cayaara inay bidixdii midigta kala ilaaliyaan oo cayaaryahankii karkiis oo bidixda ka dheelaya markii laga soo galo runtii waa inuu Van Dijk oo meeshaas oo kobargaraya ama uu ilaaliya dhinaca kale oo midigta haddii laga soo galno Ibrahim Konate ayaa shaqadaas iskale laakiin cayaartii Manchester waxaa u maleysaa Van Dijk dhinacaas iyo asigii karkiis inay shaqo fiican ayna ka socon meeshaasna goolka Amumba uu ka dhaliyey waxaan la soconnaa kubaddaas oo madaxa ahayd oo uu la booday cayaaryahanka Amumba iyo waxaa isla booday iyo Van Dijk iyo waxaa isla booday McAllister kaasoo madax dhaawac ka soo gaaray laakiin Amumba isla markii dhulka uu ku dhacay wuu kacay wuu cararay kubaddii Ahmad ayaa helay xarqi 18 loo dhigay uu dhaliyay aaway Van Dijk inuu kasoo daba carara ayay ahayd nafs ahaantiisa laakiin ani waxaan isleeyahay Liverpool way soo kabsanaysaa wayna kasoo noqonaysaa waxaana ku ogaa doonaa cayaarta Premier League waxay la cayaari doonaan kooxda Bradford ayay la cayaari doonaan Bradford oo markii ugu horreysay banaanka intay u soo baxday Premier League ay West Ham ay ka adkaatay taasoo 2-0 ay uga adkaatay kooxdaana waxaan la soconnaa inay yihiin kooxaha kubadaha dheerdheer iyo kubadaha loo yaqaano gacanta lagu soo tuuro inay ku shaqaystaan Liverpoolna 2 nin oo dheerdheer ayay haystaan oo Van Dijk iyo waxaa jooga Ibrahim Konate oo sheekadaas runtii iska celi kara ayaan isleeyahay marka Liverpool waxaan ogaa doonaa sabdida sida ay ugu falceliyaan kooxda Bradford sida Eintracht Frankfurt ay u kala daadiyeen oo kale ma kala daadi doonaan laakiin waxaan fili doonaa hadday 2 cayaartooy dhexda ka dhigaan oo 4-2 ay ku dheelaan dhexdooda xoogay in culays soo fuuli doono ayaan fili doonaa laakiin weerarkooda muran kama taagno
inay weerar aad iyo aad u fiican ay haystaan. sidee adig kula muuqataa saalax iyo kateke inuu cayaaro miya oo saalax weli keydka lagu hayo mase saalax in la cayaar siiyo waaye cayaarta Brentford soo socoto sababtoo waa ninkii koobabkii u qaaday Liverpool wuxuuna ahay halyigooda ayuu ahay. sidee adig kula muuqataa arrimahaas Ekitike iyo Alexander Isak yaa dhirsii lahayd kooxda Liverpool kooxda saddexda hore yaa ka dhigi lahayd Magabo Ekitike iyo Florian Wirtz miyaa ka dhigi lahayd mase waxaa kusoo dari lahayd Saalax iyo Alexander Isak ayaa kusoo dari lahayd. sidee adig kula muuqataa bal fikradaada nala wadaag.